iminkana Minnesota ayaynu gudbanaayay Mareykanka ee ku dhawaad sanad markii uu dhintay ninkii madowga ahaa ee Mareykanka madowga ahaa waa George Floyd ayaa waxaa maanta bilowday in maxkamad la saaro ninkii booliska cadaanka ahaa ee isaga lagu soo oogay dilkiisa. Derek Chauvin ayaa ninkaasi la yiraahdo waa sarkaalkii booliska ahaa ee muuqaalka laga duubay oo ay ka duubeen dad goobtaasi joogay magaalada Minneapolis isagoo jilibkiisa ku haya qoorta Mr Floyd. muddo 9 daqiiqadood ka badan ayaa uu ku hayay. wariyaha BBC Lebo Diseko ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Minneapolis. waa tan Bella sheego. dhacdo ay dadku xasuustaan oo aysan weligood iloobi karin wixii halkan ka dhacay sanad ka hor aad ay u xanuun badnaayeen laakiin raadkiisa weli wuu muuqdaa. halkani waa goobtii George Floyd uu jiifay isagoo dhimanaya. nin boolis ah oo jilbaha u saaray qoorta in ka badan 9 daqiiqo iyadoo Floyd uu ku celceliyay ma neefsan karo. maanta Derek oo ah sarkaal hore ayaa maxkamad loo soo taagaya dhimashadii George Floyd. waxaa lagu soo oogay 2 dambi oo dil ah. markii ugu horeysay booliska Minneapolis waxay sheegeen in Floyd uu diidanaa in la xiro. laakiin muuqaalku wuxuu u muuqdaa inuu sheegayo sheeko ka duwan mid sarkaalka loo xiray. sawirada George Floyd dhulka yaala oo baryootamaya ayaa xanuujisay nabaradii Mareykanka ee aan bogsanin ee ku saabsanaa qoomiyadda iyo sida Mareykanka madow ee boolisku la dhaqmaan. dadku waxay isku soo baxeen jidadka taas oo dhalisay dhaqdhaqaaqii ugu weyn ee u doodo xuquuqda madaniyiinta. waxa ka dhacay aqalka cad ayaa la sheegaa markasta taas oo dunida ku qasabtay in midabta koorka la xisaabtamo. dadka Minneapolis maxkamadeyntan bilaabatay waxay u tahay rajo iyo cabsi. tani ma aha dhacdadii ugu horeysay ee naxariis darrada booliska ee weligeed cadaalad loo sameeyo. waan ku rajo weynahay laakiin ma doonayo inaan sare u qaado rajadeyda. waxaan rabaa in cadaaladda la ilaaliyo laakiin ma hubo inay taasi dhici doonto. haddii aysan dhicin waxaan ka baqayaa oo keliya falcelinta iyo dib u dhaca ka iman karaa. tani markii ugu horeysay waaye oo sarkaal booliis ah oo cadaan ah loo maxkamadeeyay dilka qof madow ah. qareenka sarkaalka wuxuu ku doodi doonaa in falkan uusan ku salaysnayn qoomiyad laakiin qaar badan waxay aaminsan yihiin inay ku saabsan tahay qiimaha nolosha dadka madow ee Mareykanka ah. ammaanka magaalada oo dhan ayaa sare loo qaaday iyo hareeraha maxkamadda. maalintii ka horeysay maxkamadeynta qoyska George Floyd ma aanay seexan. laba nololood iyo laba cadaaladood ma yeelan karayno mid cadaanka Mareykanka ah iyo mid madowga Mareykanka ah waxaynu nahay mid. waxay galeen aamusnaan waxa soo socda oo dhici kara ayay milicsadeen. haddaba si aynu u eegno ahamiyadda ay dadka madow leedahay maxkamadan maanta dhacaysa waxaa khadka Skype-ka ee magaalada Minneapolis ku jira Jaylani Maxamed Xuseen oo madax ka ah hay'adda Care ee Minnesota oo ay leeyihiin muslimiinta Mareykanka. Jaylani soo dhawow sidee loo arkaa maanta oo ay bilaabantay maxkamadii George Floyd ee magaaladiina Minneapolis? waad mahadsantihiin horta caalamka oo dhan Minneapolis ma caalamka oo dhan gaar ahaan Mareykanka runtii waa dad badan baa u soo jeeda oo runtii raadinaya cadaalad case-kana raba inuu ku soo afjarmo in la xukumo askartii ka qayb qaadatay dilka foosho xun ee walaalkeen George Floyd. waan gartay markaad eegto Jaylani Mareykanka way soo taagneed weligeed baa midabka la sooca ee dhibaatooyinka ku saabsan ee xagga dadka madow iyo cadaanka ah. maxaad filaysaan maxkamadan maxaa ka filaysaan in mustaqbalka inay xal keeni karayso? horta maxkamaddu way dhacday runtii in hay'adaha nabad sugidda ee booliiska markii ay dembi sameeyaan runtii ay ku xadgudbaan shacabka gaar ahaan markay noqoto dadka madow Mareykanka in muddo dheer runtii waxba laga qaban laakiinse hadda la dareemay inuu isbeddel soo socdo maxkamadda gudaheed iyo annaga oo hadda hay'ad ahaan iyo la shaqeynana ururo kale inaanu ka bilaabno isbedelitaan shuruudo laga bedelayo sida hay'adaha nabad sugidda loo maamulo markay ku xadgudbaan dadkana sidii ma aragtay runtii la iskaga celiyo la keenana isbeddel keeni doona in ma aragtay hay'adahan runtii laga qabto shacabka madow sida ay ula dhaqmaan oo runtii taariikh dheerna leh dadkuna hadda shacabka ay muujiyeen isbeddelkaas inay diyaar u yihiin oo ay rabaan in la keeno. waan gartay Jaylani waxaan kusoo gabagabeynayaa imika maamul cusub baa Mareykanka ka jira Joe Biden oo dimuqraadiga ah xilkii haya
trumpna uu tegey marka ma sodhan kartaa xaaladdu way soo degaysaa maraykan oo xaggii cunsuriyadda iyo dadkiisa haysta way soo yaraanaysaa runtii waxaan dhihi karaa cunsuriyadii meelna ma tegin doorasho unbaa dhacday weli cunsuriyadii way jirtaa dadkii runtii ka xumaa madaxweynahan cusub ee soo galana weli way jiraan hadda weli waan aragnaa in maaragtay ay arrinkan ay sii jiri doonto laakiinse waxaan rajo u leenahay waxa weeyaan shacabkiiba hadda soo jeestay oo u arkay in loo baahan yahay in tallaabooyin laga qaado arrimahan oo kale shacabkuna hadday soo jeestaan runtii dadka la doortana waxba ka qaban doonaan aad baad umahadsantahay jailani oo iga soo biray minneapolis